wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yaasin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo shir jiraayad ku qabtay dalka Guinea ayaa waxa uu ka jawaabay hadal ka soo yeedhay dowladda federaalka Soomaaliya kaasoo ay ku sheegeen in xiriirka u jareen dowladda Guinea. hadalkan oo ku soo beegay waqti wafdi madaxweynaha Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi uu hogaaminayo ku sugan yahay dalka Guinea. Yaasin Xaaji Maxamuud Faratoon ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay daandaansi cad ku tahay Somaliland maadaama ay Somaliland xiriir walaaltinimo iyo saaxiibtinimo ay la yeelatay dalka Guinea. taasina wuxuu wasiir ku tilmaamay inay Soomaaliya ka xun tahay. wasiirka oo arrimahaasi ka hadlay wuxuu yidhi marka hore waan salaamayaa marka xigta waxaan halkan dadweynaha reer Somaliland uga soo tabinayaa anigoo ku hadlaya magaca wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo jooga dalka Guinea. waxaan rabaa halkan inaan uga soo tabiyo salaan hambalyo iyo warbixin ku saabsan hawlihii aanu kala kulannay safarkayagii. waxaan guud ahaan ummadda Somaliland ugu hambalyeynayaa inuu safarkaas safar ahaa mid guul ku dheehan tahay oo runtii wax badan ugu qabsoomeen. waxaan kale oo reer Somaliland ku ammaanayaa deegaanadiisa iyo dowladdiisa iyo cid walba sida niyad wanaagga ah iyo sida fiican ee loo soo wada dhaweeyey. waxaan aad u ammaanayaa deegaanka maxaaytu gobolka Awdal oo ugu horeeyey oo odayaashiisii iyo waxgaradkiisii ay si midaysan hawsha dowladda ugu hambalyeeyeen iyo madaxweynaha iyo wafdigiisa. haddii aan warbixin yar ka bixiyo sidii wax noogu qabsoomeen safarkayaga waxaanu ku sii maray dalka Ivory Coast la yidhaaho magaalada Abidjan la yidhaaho. dabeedna waxaanu u gudubnay markaanu Addis Ababa ka tagnay waxaanu Abidjan dabeedna waxaanu u sii gudubnay magaalada dalka la yidhaaho Guinea caasimadiisa oo Conakry la yidhaaho. waxay la tahay dhammaantiin halkaa telefishinka waad ka daawateen telefishinada sida qiimaha leh ee maqaamka sare ah ee loo soo dhaweeyey wafdiga madaxweynaha loo soo dhaweeyey iyo wafdigiisaba. intii ka dambeysay waxaanu ku jiray casuumado iyo soo dhaweyn iyo wada hadal iyo wada sheekaysi iyo inaanu wax badan oo cilaaqaad ku soo wanaagsanaanayaan ama la isugu soo dhaweynayo aanu ku kulanno. waxaan rabaa ummadda inaan u sheego in halkaa cilaaqaad weyn nooga soo kordheen madaxweynaha iyo labada madaxweynena ay is arkeen. wax badan oo labada danaha ah iyo danta guud ee ku jirta Afrika oo dhan iyo mandaqada oo dhan ku jirto in laga wada hadlay oo la isla gartay oo la isla meel dhigay. waxaanu aaminsanahay in cilaaqaadkaasi wax badan u soo kordhinayo dhinac walba inaanu ahayn mid laga naxo iyo mid la dhibsado iyo mid cidina ma taqaana mid aan dan waxaan dan ahayn oo laga wada hadlay ma jirto. waxaana soo gaadhayay ilaa maanta waanu social media ku arkaynay maamulka xamar ka taliya uu arrintaa ka xumaaday sidaa daraaddeedna uu gooyey cilaaqaadkii uu lahaa dalka Guinea. maamulka xamar ka dhisani isagaa Guinea u baahan maanta Guinea uma baahna waxna kuma yeeli karo xiriirka wanaagsan ee u dhashay ee u bilaabmay Guinea iyo Somaliland waxba ma yeeli karo haba yaraatee. xamar iyadaa la ilaaliyaa maamulka halkaa jooga isagaa wax la taraa isagaa nabadgelyadiisa laga shaqeeyaa isagaa guryaha lagu hayaa isagaa dhaqaale la siiyaa isagaa ciidamo u joogaan dhammaan Afrika oo dhan. annaga waxba yuu nagu canaananin maxay ahayto isagaa wax iska biinaya annaga wax alaaliya wuxuuna yeelaya ma jirto. waxaa keliya oo na tusaysaa uun waxa weeye cadaawadda iyo ciilka iyo wax uun kala fogaansho sii dhaliya mooyaane inaanu mar raba maamulkaasu wax kale ku kicin. dhowrkii sanadood u dambeeyey maamulkaasu wuxuu ka shaqaynayay dhinac walba wixii aan ku kala fogaan lahayn. haddii ay tahay
arrimaha ay ka mid yihiin mucaawanooyinkoona la dagaalamo dadkeenu siraaho mataqaanaa go-doomiya maxay tahay hawada iyo nabadgelyada iyo waxyaalihii nabadgelyada aynu labada nabad loogu wada noolaan lahaa oo uu colaad iyo cambaarayn iyo bahalkii mooyaane weli wax wanaaga oo ama la isugu soo dhawaado maamulkaa lagama arag somaliland marra kama caban somaliland intaa waxay raadinaysaa nabadgelyo iyo deris wanaag iyo wada noolaansho lagu wada noolaado si nabadi ku jirto iyo dhibaato la-aan somaliland waxba yeeli karo maamulkaasu somaliland joojin mayso haddii ay saa ku wadana dalal badan bay cilaaqaad ka goosanaysaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda somalilan yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon hadalkan ka soo yeedhay ayaa waxa uu fariin cad u noqon doona soomaaliya oo sheegay in xidhiirka u jareen dalka Guinea. hadalkan ayaa wuxuu ku soo beegmayaa waqti madaxweynaha somalilan ku sugan yahay dalkaasi. Faysal Yuusuf Kacaan, wararka Royal Hargeysa.